هشية ورسي هشية هدي كلا ندافع قودين iyo xiradiin iyo xiniintiin iyo xawadin nin raba dalka iyo deegaanka iyo caasimadda iyo qarankaba inuu dabgeliyo iyo nin ka daale heshiiye afkaaga sidaad ku soo marisay heshiiye inay labadaasu heshiiyaan sidee baad dhexdhexaad uga noqotay haddaad tahay qof damiir leh ee maqaamkiisa iyo miisaankiisa iyo sharaftiisa iyo magaciisa garanaya haddaad tahay qof dalka iyo dadka dareenkiisu xambaarsan ee ka naxaya damiirka ku siiyey inaad tiraahdo heshiiya waad ogeydeen tallaabooyinka uu qaaday maxamed xuseen rooble ee dhan ee dalka gudihiisa iyo dabaddiisaba ah shacabka soomaaliyeed hadday garanayaan inay dalka iyo dawladda iyagu leeyihiin dhagax bay ku dili lahaayeen dhagax bay ku dili lahaayeen dhagax shacabka soomaaliyeed hadday garanayaan weeye waa hadday garanayaan inay qaranka la khiyaamayo iyo dalka la khiyaamayo iyo dadka la khiyaamayo iyo sharafta lagu cayaarayo iyagu leeyihiin dhagax bay ku dili lahaayeen laakiin ma garanayaan ma ay garanayaan shacabkii soomaaliyeed ma ay garanayaan dalka iyo dawladdaba inay iyagu leeyihiin inay dalka iyo dawladdaba iyagu leeyihiin ma garanayaan waay shantii sano baa dhowdhow inta madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo joogay intaa wuxuu la marayey karkarin walba iyo surin walba waxa weeyaan waxa eryoonayay dawlado shisheeye iyo cadow shisheeye iyo bahalo soomaaliyeed baa eryoonayay iyo shaqaalay soo direen waa u yeelay fiinaalkii u dambeeyey intuu istaagay uu aniga waa la jabsay qof iyo cod xaquuqdiinni waa la diiday ummadda soomaaliyeed xaqii aa lahaydeen waa la diiday waa la jabsaday yuu la hadlayay marka wuxuu la hadlayay shacabka soomaaliyeed inay garanayaan inay leeyihiin codkan oo dhacsadaan iyo inaanay lahayn oo danka lahayn way aamuseen siday u wadeen waxay gaarsiiyeen ninkay iyagu danaynayaan inay yahay noogu wareeji ninka ay jileec iyo ka dareemeen inay danahooda ku fushi karaan noogu wareeji hawlaha doorashada noogu wareeji muddaa laga lushay wax ka riduu waayey marka waxaan idiin sheegayaa ummadda soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeedba dawlad baynu haysannaa midna inaynu doorannaynu doonaynaa dawladiba inay dawlad beddesho madaxii inay madax beddesho qaran inuu qaran sii beddelo ayaynu u halgabaynaa oo u dagaalamaynaa horumar weeye waxaynu doonaynaa waa magac waxaynu raadinaynaa masiir weeye waxaynu raadinaynaa sida dawladaha adduunka weeye waxaynu doonaynaa inaynu dhisanno laakiin waxaynu dhisannaa ama ku noolnahay khiyaali dawladda ciddii lahayd waa in la helaa ummadda soomaaliyeed qaran ilaa heer gobol ilaa ummadda shacabka oo dhan waxaan u sheegayaa soomaali qof kasta uu yahay waa in la helo qaran kasta oo jira ciddii lahayd waa in la helaa qaran kasta oo adduunka ma jiro qaran iska noolaada oo cidli aan la aqoon dawlad dhisan oo cidli aan la aqoon adduunka kama dhacdo waa in sideedaba la helaa taynu haysanno hadda iyo tan dhalan doontaba waa in ciddii la helo ciddii lahayd dawladdan waa in la helaa dalka dawladda tan iskalena waa in la yaqaannaa oo la garanayaa dawlad soomaaliyeed baa ka jidha dalka aynu joogno waxa weeyaan caasimad soomaaliyeed baa ka jirta waa muqdisho wixii kale oo nin waxa weeyaan gobollo sheeganaya ama maamulo sheeganaya meel kasta ha joogeen caasimadda soomaaliya waa mid dawladda soomaaliyana waa mid meel kasta aad joogtid in calanka iyo qaranka ciddii lahayd in la helo wey waa in calankan iyo qarankan ciddii lahayd la helo wey marka la helo ciddii lahayd qarankan iyo calankan marka la helo ciddii lahayd oo garanaysa inay leedahay ayaa dawlad la dooran karaa oo qaran la dhisan karaa laakiin waxaan idiin sheegayaa tan dad u xarbiyayaan inay dhisaan oo doorasho loo dagaalamayo iyo tan hadda aynu joogno
kulli waxa qabanaya madaxweyne Soomaaliyeed waxa qabanaya ciidan Soomaaliyeed qof Soomaaliyeed ayaa xilka qabanaya tani kama duwana tan lagu roorayo haddaa tan amnigeeda iyo ilaalinteeda iyo sirteeda iyo qarannimadeeda iyo magaceeda aad ilaalin weydo way waji cusub oo tan dambe ku dhisayso ku ilaalinayso ii sheeg waxaan rabaa inay ii sheegtaan dawladdan waxa iyadoo lagu ilaalin waayey oo tan soo socota xubbiga iyo kalgacalka loo hayo oo lagu ilaalinayo ma hubtaan in laga ilaalin doono waxa tan lagu wado ma hubtaan in loo ilaashan doono dawlad dalka Soomaaliya ay leedahay oo shacabka Soomaaliyeed leeyihiin qaran shacabka Soomaaliyeed leeyahay oo ka hadli karo oo wixii xun diidi karo oo wixii wanaagsan soo dhaweyn karo inay tahay dawladda iman doonta oo amnigeeda iyo wax weyn lahaansheeda aad cadaynaysaan ma hubtaan waa maya wey waxa li nin hooyadii eedadii cidla kaga guuray hooyadii uma nagaado ninka maanta dawladda joogta waxaynu helay intii dawladoodina soo mareeyay madax kasta oo qof nin Soomaaliyeed oo dalka soo qabtay waa nin Soomaaliyeed sharaf iyo maamuus buu naga mudan yahay madaxweyne kasta qof kasta oo xil soo qabtay Soomaaliya sharaf iyo maamuus ayuu naga mudan yahay hadduusan isagu bannaanka isu tuurin maqaamka uu leeyahay isagu hadduusan ka leexan qof kasta ee Soomaali soo xukumay maamuus iyo tixgelin iyo sharaf buu nagu leeyahay iyadoo ay sidaa tahay waxaan maanta haysanaa dawlad adduunka oo dhani fadhigeeda ugu imanayaan qaran adduunka oo dhani aqoonsan yahay meel walba looga hambalyaynayo fadhiga loogu imanayo annaga nala baryayo innagaa layna baryayaa fayl baa loogu jiraa waxa weeyaan meeshii madaxdeenna hore ee ugu tegi jidhay dalka dibaddiisa iyadoo u tegi jirtay ee boorada ugu tegi jirtay agaasime la kulmi jirnay madaxweynaha Soomaaliya agaasime la kulmi jiray maanta nin walba ninka dhigiisa baa la kulmaya gaashaandhigu dawlad kasta gaashaandhigeeda isaga la kulmaya amniga taliyaha waxa weey laanka wasiir kasta waxa weeyaan dhigiisa la kulmaya maqaamkeeda iyo maamuuskeeda iyo sharafta magaca Soomaaliyeed dawlad soo celisay oo nin walba madaxa u ruxayo oo la yaabaya oo filan waayay baynu haysanaa waxay Soomaalidu la arki weyday Soomaalidu waxay la arki weyday maxay tahay waxaan doonayaa inaad ii cadaysaan qaranka dambe oo dhisan doono siduu sidee u egyahay kan ma ka fiican yahay ma ka qurux badan yahay ma dad cusub oo garanaya inay qaranka iyagu leeyihiin baa iman doona dad cusub miyaa iman doona dhaliisha ugu weyn halaal dhaliisha ugu weyn waxa weeye meesha ay hogtu ka quruntay waa shacabka ummadda Soomaaliyeed dhaliisha ugu weyn waa shacabka ummadda Soomaaliyeed oo aan garanayn inay iyagu dalkan leeyihiin aan garanayn inay dawladdan iyagu leeyihiin ma garanayaan ma aaminsana dalka inay leeyihiin ma aaminsana dawladdan inay iyagu leeyihiin oo ilaa madaxweyne ilaa shaqaale iyaga dhammaan ay u yihiin shaqaalahoodii ma aaminsana inay dawladdu iyaga ku dhisan tahay ma aaminsana inay iyaga tahay dalladoodii qabkoodii hankoodii sharaftoodii magacoodii amnigoodii waxaan la yaabanahay nin qori dable sita qori dable oo raba inuu dawladda iyo dalkaba geliyo iyo nin ka daale baa hadba kooxi soo baxaysaa weliba odayaal isku sheegaya waxay odhanayaan war heshiiyo istaaya war heshiiya war heshiiya haddii kalena dhaafa qoodhiin iyo xeradiin iyo xiniintiin iyo xawadiin nin raba dalka iyo degaanka iyo caasimadda iyo qarankaba inuu dabgeliyo iyo nin ka daale heshii afkaaga sidaad ku soo marisay heshii inay labadaasu heshiiyaan sidee baad dhexdhexaad uga noqotay haddaad tahay qof damiir leh ee maqaamkiisa iyo miisaankiisa iyo sharaftiisa iyo magaciisa garanaya
haddaad tahay qof dalka iyo dadka dareenkiisu xambaarsan ee ka naxaya damiirka ku siiyey inaad tidhaahdo heshiiya waad ogaydeen tallaabooyinka uu qaaday maxamed xuseen rooble ee dhan ee dalka gudihiisa iyo dabaddiisaba ah shacabka soomaaliyeed hadday garanayaan inay dalka iyo dawladda iyagu leeyihiin dhagax bay ku dili lahaayeen dhagax shacabka soomaaliyeed hadday garanayaan weeye waa hadday garanayaan inay qaranka la khayaamayo iyo dalka la khayaamayo iyo dadka la khayaamayo iyo sharafta lagu cayaarayo iyagu leeyihiin dhagax bay ku dili lahaayeen laakiin ma garanayaan ma ay garanayaan shacabkii soomaaliyeed ma ay garanayaan dalka iyo dawladdaba inay iyagu leeyihiin inay dalka iyo dawladdaba iyagu leeyihiin ma garanayaan waay 5 sano baa dhowdhow inta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo joogay intaa wuxuu la marayay karkarin walba iyo surin walba waxa weeyaan waxa eryoonayay dawlado shisheeye iyo cadow shisheeye iyo bahala Soomaaliyeed baa eryoonayay iyo shaqaalay soo direen waa u yeelay finaalkii u dambeeyay intuu istaagay wiyaaniga waa la jabsay qof iyo cod xaquuqdiinni waa la diiday ummadda Soomaaliyeed xaqii aan lahaydeen waa la diiday waa la jabsaday yuu la hadlayay marka wuxuu la hadlayay shacabka Soomaaliyeed inay garanayaan inay leeyihiin codkan oo dhacsadaan iyo inaanay lahayn oo danka lahayn way aamuseen siday u wadeen waxay gaarsiiyeen ninkay iyagu danaynayaan inay yahay noogu wareeji ninka ay jileec iyo ka dareemeen inay danahooda ku fushi karaan noogu wareeji hawlaha doorashada noogu wareeji muddaa laga lushay wax ka riduu waayey way u aamuseen shacabka Soomaaliyeed wuu ku wareejiyey wuxuu ku furay meel alla meesha uu doonayo ku furay faynot meel alla meesha uu doonayo ayuu ku furay aad baan ugu raaxaysanayaa qof aan anigu doonayo inaan badbaadiyo oo aniga ii soo qoraya ay ama xumaan aniga waxay ii tahay farxad bay iiga dhigan tahay farxadayda weeye sababtoo ah waa waajib isaaran inaan kuu sheego noloshaada iyo jiritaankaaga iyo magacaaga waajib bay igu tahay haddaad madaxweyne tahay iyo haddaad ra'iisul wasaare tahay iyo haddaad wasiir tahay iyo haddaad qof rayida oo shacab tahay xaqa aad arki weydo oo aad leedahay inaan kuu sheego waajib bay igu tahay maaha qarannimadu wax reere lagu raali geliyo maaha nin wuxuu doono samaynayo in lagu sambooro maaha in waxa weeyaan faraha lagala leexleexdo xaqiiqda laga bayro uur buka iyo af macaan wax lagu dhiso maaha dawladnimadu adeer maaha adeer uur buka iyo af caafimaad qaba wax lagu dhaqo maaha dawladnimadu waa wax run cad lagu dhaqo wey